جال محمد أحمد إسلام مدحوينه دور الشدة قبا شرع بعد ولاده أنا كل أقول قبل كذا أودياشيس وأكون فدي استاد وجبلان وسدح قبل مد والله هيستا كي اللي بدك كله مد فرماجة هذا نقب صدي مد ك جبلان أي ما مشى شرع بيقوله هاي كراسة جبلان إنه يكون قبته أيضا أي شرع يقوله مناسب بيقوله هاي قفكم معها حد قدبكم معها odayaasheedii baa joog ugaasyadii baa joog boqoradii baa joog salaadiintii baa joogta kursi uusan ugaaskiisa joogin 16 oo kismaayo uusan joogin malaha kursi oo saxiixiisa uusan gadaas kismaayo joogin malaha hadii caqabad la geliyo garoomadii barooma la dhigay oo caqabad la geliyo oo military la dejiyay waxaan anaga u casanaynaa beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roobla shalayba waxa iyaga wax caqabad la iskaga dhigo ma hayna awalba shalay bay هل بولين ريح حلال ما دش أهايين يعني نقول رجالين كراسان نج إن لجربين دورشة الصومالية. وحن هل كان أنا وحن كإيمت دعان قبل كجدا يعني كمية هاي قبل كأننا كإيمت أنت هذا وحن وإيمت صومالي فدراليسن وي شنت دولة قبلات doorasho ka jirta oo aqalka hoose ee Soomaaliya qolo walbana gobolkii ay lahayd bay dhismo u aaday anagana saasan inta u nimid madaxweynaha ay leedahay madaxweynaheedana maamulo dawladda federaalkana raalli bay ka tahay beesha caalamkana raalli bay ka tahay Soomaaliya isku sumad weeye isku luqad weeye isku diin weeye inta kale oo Soomaaliyeed siday baarlamaanka aqalka hoose ay u dhisteen inaan anagana u dhisano way ayagan kamidnahay 16 kursi gobolka Geda yaali ayaga ka doorashadii inta marxaladii inta waqti waxna diirsidii aan ku doodo wayn laanahu sabab maamulada dhan Puntland ayay la mid tahay ayada si dadku qaban lay qaban wali dadku ka dheerad ah madaxweynayaasha ayaga labadooda degmo iyo sidii xaaladii hayti iyo seedan waxaad moodaa marka dawladda dhexe Soomaaliya ayaa faragelin samaysay gobol maamulka Jubbaland kamid ahay si xooga oo sharci darro ciidamo ku geysay gobolka dadkii u dhashay waa joogan wax laga la tashaday iyo waxay mas'uul ka ahaayeen iyo waxay go'aansadeen in gobolkaas uu ka go'ay Jubbaland ma aha mana ahayn dana siyaasadeed oo farmaajo uu ka lahaa inuu meeshaas kuraas ku boobo ayuu ciidamo u geystay dad ku laayay askar ku laayay Jubbaland ku shacab ku laayay caruur ku laayay haween ku laayay waliina waa jirtaa dilkii iyo dhibaatadii waxaana daliil u ah dadkaas inay yihiin dad askara oo meeshaas xoog lagu geeyay makhraati waxa ka oo daliil u ah marka ay hadlayaan inay yihiin dad mas'uuliyiin inaysan ahayn meeshan waxaa la isugu yimid shir jaraa'id in lagu qabto shirkaas jaraa'id oo ka socda 16 kursi ee gobolka Geda ku isnanay haddana la maran habaabiyey oo dhibaato badan ay ka jirto qodobka koobaad waxaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya beesha caalamka guddiga doorashada dhammaan aan ka codsanaynaa kuraastaas inayna ka harin kuraasta Soomaaliyeed kuraasta Soomaali inayna ka harin yaan ka codsanaynaa waayo xaq uma lahin inay ka harto ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida
ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagugu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. History is what it would be. iyo weliba tiifiyada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay, adiguna ma ku qanciyay.